kulanti wanaagsan akhyaarta sharafta leh war degdeg oo haatan ina soo gaara ayaa wuxuu sheegay in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalka maxamed ibraahim macalimu ayaa ah afhayeenka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa qarax ismiidaamin ah lala beegsaday isaga oo maraya agagaarka isgoyska dabka. qaraxa ayaa lala beegsaday gaarigiisa kadibna waxay wararku u sheegayeen in maxamed ibraahim macalimu uu soo gaaray dhaawac fudud islamarkaana loola cararay dhankaas iyo cisbitaal madiina. isbitaalka markii la geeyay ayaa xaaladiisu waxa ay sheegaysaa inuu kasoo raynayo dhaawac aan uu gaarayna aanu dhaawac halis ahayn. wixii warar ah ee kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa, balse goobtii uu qaraxa ka dhacay oo ay weli dadkii joogaan ayaa xaaladeedu sidaan ahayd, waxaana soo gaaray saraakiisha ammaanka oo ilaa haatan baaritaan ku sameynay sababta qaraxa uu dhacayo, waxaa keenay iyo cidda ka dambeysay. intaba wixii warar ah ee kusoo kordhana dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa. dhagaystayaal, daawadayaal, aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.